رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورتوكا عن منطقتي الحمد لله ما نبغى كارسن بلا يقولي إلهي ما هدوي سبحانه وتعالى إلهي إنه هو القليل سينا بالقلية وأنا هم لينا يا دولة ده أو خرج كيف بحسي شاروا حم في ليا كيد دمنا وبحسال يقولي وسعرته هي كوميشن أو إسنا إلا حتى في عنه ولا يقصون ميال الجيران وباهنا مكوّل هذا الله هدى عليه له وحين المدن كجرا waxaan jecelahay commission maadaama la geliyay hadda doorashadii oo ah waqtiga kooleed inaan isla meel dhigan doonina waxaan su'aal qabno dadka waxaan ugu baaqayaa in cod bixinta ayaa muhiim ah inaad qaadataa oo iska seexataa ma fiicna waxaa ii sheegay in qaar intay lacag qaadaan dhalinyarta ay ka iibsanayaan kaararkii $40 oo haddana jeexjeexiyaan si aanan dadkaas meelaha ayaan iyagu strong ku ahayn waxaasna waa culture imkan ugu soo baxay oo saddexdeeda xusbe hore waxaa ma aqoonin waxaa maan isticmaali jirin nadiif baanu ahaan jirnay waxaan leeyahay kaarkiina ilaashada waa qof aan lahayn inuu cod bixiyaa waxa weeye qof aan markaa ahayn muwadan aan ahayn waxaad meel kaga dhacaysaa yani xuquuqdii aad lahayd inaad tahay nin sitiisana ama gabar sitiisana aad kaga dhacaysaa bahalkiina ilaashada biila qaatayal ha noqonine biila qaatayal way naga buuxaan waa kuwa cumaamada sita subax kasta soo toosiyo dooyin aflagaado ay ku noolaadaan laakiin dhalinyartiina mutacalimiinta ah ee mustaqbalka leh iska ilaaliya mishaarnimada iyo damiir xumada waxaan leeyahay maanta foodkiina gacantiina ka cilbaxa inaydu maalin kasta isqoomaysaan iyo inay qoomo ka baxdaan oo wax wanaagsan doorataan gacantiina ku jirta waa ogtiin dalkan 25 sano 26 sano dowladaheen waa ogtiin maanta baasboor ma haysano waa ogtiin dawo ma haysano tacliinteena waa lacag biyaheena waa lacag leerkeena waa lacag dumarkeeni qudrada iibinayay masquul ma haystaan meel dalaayada ma haystaan lacagta laynaga gaadaa meel ay ku soo noqoto mushaharka ay dawladdu bixisay moojaane ma hayno dawladdeena hoose waa aragteen magaaladeena gudaafad bay noqotay baabuurtu way naga jabsaa waddo male sanadkii 30 kilomitir oo laami ah caasimada ka sameeya kirkir waaye oo 25 reer Soomaaliland oo dhashay Hargeysa ayaan dooranay taladooda waxa ka dhigay inay cashuurta iyo dhul ay iibiyaan sharci aan sameeyno anoo hadii waxa horanaya sharciga dhulka dawladda leh natural resource lama kala laha gacantan ku soo celinay dawladda insha Allah taala waxa aan dhisanay delicate-ka aan ilaashano halka uu gaarsiiyay Axmed Maxamed Siiraayo aynu wax adag ku sameeyno institution adag sameeyno sharci ku shaqeyno sharciga waa iska laabno sharci dalkan maanta kama jiro waxaan soo qaban oo hore sharciga ayaan ugu horeysinay insha Allah taala marka waxa weeye dhalinyaro weeye 120 waxaan maanta dhalinyarada 40 way ka hooseeyeen waa 5 way ka hooseeyeen mustaqbal u baahanti qabyaalad iskuul dhismayso baasboor bixin mayso scholarship bixin mayso shaqo sameyn mayso qabyaalad iska daay hay'adamada ku kala xil iska daay maanta idinka power odayaashan meelaha lagu cuntay si ay hadda reer hebel lahay reer hebel kuwan baabina insha Allah taala intii taan sameeyna waxaan sameeyay nation absarsiba qaran baynu sameeyna insha Allah taala qof kastaba cilmigiisa wax ku baranaya heer lagu qabsan maayo region lagu qaybsan maayo beel ma jirto waa Somaliland waa equal dadku uu siman yahay dadku waxaan doonaynaa sharci ku sameeynaya cadaalad ku sameeyna doonayna insha Allah taala maga maanta crossroad Somaliland taaganta crossroad-ka haddii Allah waxaan ka baxaynaa foodkiina amba gambiya oo saxabkiina ha khasaaro amba horaha loo socdo foodka meel fiican dhiga madaleen walaalayaal waa dhaliirtiina bilka u diraya hooyooyinka ablaha dadka baahan baan u dhignaa ma nin qof u nool maanta maxaad ku qaysaa oo cuntaa aqligiisu yahay inay noo taliya ma oo taa laga qaato waa mahadsantiin meediyaha noo ilaaliya maanta walaad xun baa nagu socotaa muqdisho waxay noo fariisaneen priorities oo ka dhigay Soomaaliya inuu dhammayn gareeyo oo ku koray kacaankii adoogeen halkii waxay dambaday nin aan gurigiisa cid ka dhimin ma jirto
inaan yaro ku kacay oo si accident jira u yimi ayaa maanta xooga wuxuu saarayaa inuu Soomaaliland qas ka rido qaybiyo miirihiin ha qorina coverage ka diista wixiina wanaagsan qora waxa xun leena wacay ha qorina coverage ka siinina meel aan dawladda Soomaaliya ma jirto inaga sameyn doona insha Allah taala waa lagu shaqaysanayaa waa aan United Nations ka hoostaala oo ogtiin Michael Keaton baa xukuma awood ma leh xaafadu ma wareegto beebay fuushan yihiin wasiiraan iska dhigana halkan baan ka bilaabinaa hagaajistooda waa hilibkeena inaga mid yihiin isku bori baynu nahay laakiin kala waxaan nahay administration kala dawladda noqonna marka waxaan miidaha ka codsanaya wax badan oo jirin baa qortaan waa la yiraahdaa wax ku shaqaysaan wax badan baa website-yada laga qaataa oo negative ku ah dalkeena odagana waan si macsalaameynaa sinaayo meel fiican buu sameystay iyo soo gaarsiiyay waxbuu qabtay laakiin halka waxa uu qabtay waxaan jecelahay inaynu wax wanaagsan oo waara oo sharci ku shaqeeya oo in dadka midayno ayaan ka shaqeynaa insha Allah taala marka guul banay guul Soomaaliland ilaahay guusha saameeyo ilaahay dalkeen dal jira ha ilaaha ka yar walaalayaal السلام عليكم ورحمة الله